صاحب يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصاحب يا الوقت بدل ما هيست لكن waxaan doonayay dabkan wiiga dhacaya inay tuso loo isticmaalo Telegram oo cashiradan Ingiriiska looga dhigto gaar ahaan labadan fasal ee ugu waaweyn Soomaalida imika fasalka 19 kula 20 kun oo arday ku jirta marka ugu horeysa soo gasho walaal had iyo jeer meelaha bankiga la eega ama binkan ka wada sorry meelaha binka waa tustoona hadii Ilaahay yiraahdo marka saa u soo gasho asxaabta waxaan doonaynaa yarsuga halka ma aragtaan halka binka ayaa la yiraahdaa sorry binkaasaad eegaysa wad ku dhufanaysaa waxa weeye had iyo jeer haddaad waqti hayso waa inaad akhridaa because waxaad fahmaysaa instructionkii imika waxa lagu yiri meesha waxa la soo galo wax loo qabto maxaa lagaaga baahan yahay waxaas oo dhan baad soo akhriyaysaa dadna halka yare ah faahfaahin sida wax looga dhigto halkaasaad ku sii dhufanaysaa ka bacda halkan oo kala imanaysaa waad akhriyaysaa haddii aad waqti hayn laakiin ana bal isku dayayna insha Allah ku soo koobo in walaal marka halka fadhido insha Allah waxa socda ayaa lagu yiri PDF ka ugu horeeya la digaysaa imika tusaalahan casharada qaarna waa casharo socdo oo caadi ah kuwa iska cilmi guud ahaan loo dhigo oo educational macallimiintu u dhigaan marka casharada buugaagta laakiin ee buugga la dhigayo ilaa hadda waxa ku jira laba cashar baa ku jira casharada taxanayaasha ah mid waxa weeyaan waa macallin Maxamed Yuusuf baa dhigay insha Allah oo tustoona tusaalahan imika casharkan oo kale waa buug asxaabta dasa ugu yar dhufato markaba waxaad fahmaysaa meelaha dad yar akhrido waxa lagu leeyahay waa kan fasalkii lagu dhiganayay haddaad doonayso Allahumma sa'am halkii chatting lagu sameeyay ama ardaydu buug halkaas ka dhalo garisanaysa marka bal hadda inta markaynu soo akhrino yani qaabka casharada u socda markaad yar akhrido chance yar siiso muhiim waxa weeye inaad fasal ka gasho oo reeri fasalkii ku jirta waa kan way inaad groupkan isna ku biirto oo groupka inta badan isla chatting-ka codadkii waxa la soo dhigo iyo Allahumma sa'am buugan PDF ka ah yani halkan kaasna ina la digto marka saasa ugu dhufanaysaa buugii wakaas markuu saayahay buug kuma digin laakiin waxa sameynaysaa halkaas ku dhufanaysaa waranka yar ka bacdi buug markuu ku dago casharadan waxay ku fiican yihiin buugii macallinkii screen-ka jibu page-kii iyo number-kii kaaga soo qaadaya buuggiina wada haysataa codkiina tusaalahan markasta xiisada uu soo dhigo imika tusaalahan fasalka iyo buuggii soo kan maaha imika hadda halkan casharada oo dhameystiran halkan ku dhufano asxaabta hadda yani PDF ka marka la digino halkan ku dhufano oo ka PDF ka halka ku dhufato haddana casharada oo dhameystiran halka ku sii dhufo linkigaas ku yiri adoo si akhri markasta marka ku dhufato tusaalahan buuggan waa buug hadda bilow ah casharkii lixaad ba hadda marayaan ma arkaysaa saasi casharadu yeela marka linkiga bluega had iyo jeer waa casharkii tusaalahan hadda linkiga bluega hadda ku dhufto waa ka asxaabtay Allahumma musta'aami buugi iyo yani si loola digayay iyo qaabkaas halkan ku yaala okay haddaan noqdo oo casharka labaad ku dhufto oo isna kaasa ama ka saddexaadba waxaan u tagay Allahumma musta'aami ciwaankii casharka lambarkiisii iyo screen oo laga soo qaaday screen capture laga soo qaaday ama yani screenshot laga cashar kasta screenshot baa la socda page-ka aad dhiganayso iyo codadkii macallinkii iyo buugga originalkiisii codkiisii tusaalahan imika marka codadka dhageysato imika codka ugu soo sharaxaadii macallinka waa dhageysanaysaa page-kii iyo number-kii wixii uu ku sheegay halku marayo halkana waad ka eeganaysaa maxaa kale oo ku haray casharka waxa la socda codad Unit 1 A time to remember Unit 1 okay cashar kasta waxa la socda casharada codadkii macallinka iyo codadkii buugga u lahaa iyo screen-ka iyo capture lagaaga soo qaaday maxaa la buug kasta page-ka aad dhiganayso soo waxa manay waa easy marka si kastaas isugu xigaan tusaalahan waxa jirta buugaag dhamaaday imika tusaalahan fasalka koowaad oo kale imika kan oo kale hadii jeer fasalkan asxaabta hadda eegno waxa isna waa kan aan ku jirno isna halka aad ku soo dhufato asxaabta waxa ka helaysaa Allahumma sa'ab binka hadii jeer ku dhufo yar akhri halkan qoraalkan waxa lagu yiri buugaas kii labaad uu dhama mid kale la bilaabay marka halkaas aad ku dhufato kaas iyo rasaatay fasalkan si gelay haddaan halka ku soo dhufto Allahumma musta'aamay buugga magaciisa markaad yar akhrido buugga yani buuggi iyo waxa u tagaysaa Allahumma musta'aam download ganacsanaysaa casharadiisa haddaad doonayso iyagoo dhammaystiran casharadii oo dhan halkaas ku soo dhufanaysaa marka yani halkan waa kuwa casharadii ilaa 30 cashar oo kuwaas
iminka danka 24aad ku dhufto wakaas marka saas asxaabta codkii macalinka waa easy. marka asxaabta buugaagna waa buugaagta waxa jira cashiro kale oo general oo ku jira meesha hadaad baadhay iminka tusaale ahaan ama sawir ahaan aad u baadho ama picture ahaan waxaad ka soo helaysaa intaas oo cashar oo iyaguna ka madax bannaan iyo buugaagtii. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asxaabta qaabkaasaa loo dhigtaa kulli markasta soo gasho waxaa muhiima inaa halkaa akhrido binka. iminka tusaale ahaan haddaan binka akhriyo asxaabta tusaale ahaan markaan soo galo waa cusubahay waxaa muhiima Telegram inaad binka akhrisato halkaa. soo marka halkaa akhrisato waxbaa ku yar baxaya sida loo buugaagta u socdaan iyo waxaasad insha allah ayaad baran doontaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.